antoodu waa dad jaamacada ka baxay waa dadkii maanta madaxda joogtay ay shaqo geyn lahayd ee ma aha dadkii ay xabsiga geyn lahaayeen. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. idin ahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkeenii diiradda wareegtay oo maalintii labaad ama markii labaad iskor taagaya xaaladda deegaanada degmada Quljeed. waxaan rabnaa laba qodob oo deegaanka ku saabsan inaan ka hadlo. labadaas qodob oo ah dadka xiran iyo sababta ay u xiran yihiin. aynu ku hormarno dadka xiran oo ah 8 qof oo loo soo xiray arintii xildhibaanku lacagtii deegaanka uu geeyay oo uga qayb qaadanayay dhismaha iskuulka Quljeed. dadkaas oo isugu jira cuqaal, oday dhaqameed iyo aqoon-yahano. kow waxa ka ah Siciid Geesaale oo horena arintiisa aan u sheegay, nin macallin ah, caaqil ah, ixtiraamna naga mudan ah. sidoo kale waxa ku jira Dayb Aw Muumin oo nin oday ah oo maaragtay dadka magaalada muddada deganaa isbedeladana ka warqaba ah. sidoo kale waxa ku jira Cabdi Feerigeele oo ah injineer muddo badan magaalada dadka dhismaheega ka shaqeeya iyo horumarkeega ahaa. sidoo kale waxa ku jira Ruuga Mayrane oo ah nin odaya beera tabcaday, hawlihiisii hadda qabiyo ka ahaayeen, haddana xiran. waxaa kaloo ku jira Maxamed Daabad oo ah wiil dhalinyaro ah, ganacsade ah, caaqil ah, intaasba kulansaday, haddana xabsiga ku jira. sidoo kale waxaa ka mid ah Axmed Nuur Xasan Kaahin oo ah nin jaamici ah, muddana ka ahaa iskuulka dugsiga sare ee Quljeed macallin, maantana xabsiga ku jira. waxaa kaloo ku jira Cabdifataax Siciid Xoosh oo ah wiil injineer ah, ardaydii ka soo baxday deegaankaas ah. waxaa kaloo ku jira Shabcaan Cilmi Boodhari oo isna ah dhalinyarta deegaanka ku soo jeeda, dhammaantoodna ahaa dadkii xildhibaankii la socday ee ku galbinayay safarkiisii deegaanka oo maaragtay ku yimid. dadka aan soo sheegnay oo 8 ah dhammaantood waxay ku jiraan xabsiga. sababta ay ugu jiraan ilaa hadda qof caddayn karaa ma jiro. waxay ahaayeen dad bulshada kaalmo muhiima kaga jira. waxay ahaayeen dad reerale intooda badan oo ubadkoogii iyo howlahoogii ilaa hadda ay dayacan yihiin. antoodu waa dad jaamacada ka baxay waa dadkii maanta madaxda joogtay ay shaqo geyn lahayd ee ma aha dadkii ay xabsiga geyn lahaayeen. dadkaas oo ayna jirin qof ay ku gafeen intay meel soo istaageen ay wax ka sheegeen, maantana sabab la-aan xabsiga ugu jira. waxaa codsanaynaa in aqliga saliimku shaqeeyo, dadkaas xorriyaddooda loo soo celiyo, lana fasaxo, sii dayntoodana aan lagu xidhin inay cidna raalli geliyaan, cidna ay xumeeyaan. cid kasti arrintaas ka qayb qaadan karta inay furdaamiso arrintooda, oo ugu horeeyo Suldaan Axmed Cilmi Kabaal oo ah ninka maanta cimaamada u sida, cimaamadii aabihii sida, suldaankii reerka ah, oo siyaasiga iyo jaamiciga xabsiga ku jiraba labadaba odaygoogii ah. waxa tol lagu yahay waa ninka toosan quweyntiisa, ninka qaldanna qabashadiisa. waxaan suldaan ka codsan lahaa dadkaasi waxay ku xiran yihiin inuu baaro, sida ugu dhaqsaha badanna uga qayb qaato soo deyntooda.